kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan ku eegi doono magaalada Laascaanood iyo xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood maanta Jimcaha ayaa waxaa lagu garaacay madaafiic iyo hub aad u waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa goor sii horeysay shalay sheegay inay joojiyeen xabadda doonayaan wada hadal balse lagu soo warramay maanta Jimcaha dadku masaajidada intay ku jireen inay duqeyn baahan u ka geystay magaalada Laascaanood halkaas ay ku naf waayeen dad gaaraya 10 qof daawacuna uu yahay mid tirabeela sida ay dadku deegaanka ay sheegayaan magaalada Laascaanood maalintii 13aad ay u tahay xaaladda cakiran ee ka taagan deegaanada SSC madaxweynaha Soomaaliland iyo ciidankiisa ayaa loogu baaqay inay faarujiyaan magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda hadday doonayaan wada hadal sida ay sheegeen garaadadu balse garaadada ayaa ganafka ku dhuftay inta la heesto deegaanadooda inay wada hadal la furi doonaan Cornel Biixi korneelka mayalka adag ee uun jecel daadinta dhiigga dadka reer SSC Masar Biixi ayaa ninka kan oo hore u laayay dad magaalada Boorana sagaashameedii haddana u muuqda mid laynaya dadka reer Laascaanood ee shacabka dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Jimcaha khudbad uu ka jeediyay masaajidka ku yaala madaxtooyada Soomaaliya ayuu sheegay in aysan ahayn in la daadiyo dhiigga dadka reer Laascaanood ee shacabka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga digay go'aanka beesha dhexe in ay ku cadaadiyaan dadka doonaya midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya Masar Maxamuud ayaa hadlaya yiri idinkuba cidnida cadaadinayso in ku qasbaysa malawan goosanna ayaa dhahdeen dadka doonaya midnimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya faraha kala baxa madaxweynaha ayaa kumanaan qof oo masaajidka madaxtooyada kula hadlayay oo khudbadaas ku hor akhriyay sheegay inay dadkaas aysan mudnayn in dhiigooda la baneesto balse Soomaaliland ayaa u muuqata mid ay ka degi la tahay guuldaradii baahneed ee ka soo wajahday dagaalka weyn ay ku qaaday magaalada Laascaanood iyo dadka shacabka ee reer Laascaanood garaadada beesha dhulbaante ayaa suntida u haya in ay Soomaaliland aysan wacdna ku maray inaysan dib ugu soo noqon doonin magaalada Laascaanood dad badan oo reer Laascaanood ayaa ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ku catabaadaya in ay doonayaan wada hadal oo uu weyn yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka warfaafinta Saleebaan Cali Koore ayaa sheegay inay dadkaas yihiin dad reer Somalilander dowladda Somalilandna wax kasta oo ay tabasha ay ka garaabi doonto oo hadalka u dhigay balse uma muuqato inay xaaladdu ay ka soo roonayso kadib markii maanta lagu soo warramay inay lagu garaacay madaafiic iyo hub baahan magaalada gudaheeda halkaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 10 qof intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen dadkii ugu badnay ebed ayaa la geeyay koonfurta iyo magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo kumanaan qof oo shacaba oo dhibaatada uu ka Masar Biixi uu ka geystay magaalada Laascaanood dib aad u badan oo ka soo gaaray dadka shacabka taasoo u muuqata inay xaaladdu marba markay ka dambeysay faraha ay ka sii baxayso Soomaaliland ayaa in badan ku eedeysay inay deegaanadaas ay jilbaha dhigteen kooxaha wax qarbuda siday hadalka u dhigeen balse ay caalamku u cuntami weysay waxa ay Soomaaliland sheegayso qolaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay joojiso Soomaaliland xabadda ay ka wado magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda dowladda Soomaaliya ayaa in badan ku baaqday in la joojiyo dhiigga bilaa macniga u daadanaya dadka Soomaalida ee ku daadanaya magaalada Laascaanood madaxweynaha iyo xukuumadda Somaliland ayaa u muuqata mid doonaysa inay u adeegsato xoog ama awood ay ku qabsato magaalada Laascaanood taasoo ay 13 maalmood ay hortaagan yihiin dadka abaabulan ee deegaanka ee ka soo horjeeda nidaamka Somaliland ee gaamuray 5 iyo 10 sano ka dhisnay magaalada Laascaanood ayay u muuqataa inay uga dhamaatay xukuumadda Masar Biixi
kadib 13 maalin ooy jilibka lisu aastay aysan haba yaraateena wax uga soo naasacdaan xukuumadda Somaliland ay hogaaminayo Masar Biixi. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaana Allah.